la kulmeen ra'iisul wasaaraha si fiican buu u soo dhaweeyey. Waxay ka wada hadleen ra'iisul wasaaruhu iyo tiimkii iyo aniga iyo wasiir ducaale iyo taliyaasha ciidamada. Waxaan u soo gudbinay baahidayada iyo sida ay wax yihiin. Waxaan u sameynay presentation oo ah baahidayada meeshaan u baahannahay. waxaan hor yaalla muhiimadda uu gobolkan u leeyahay haddii la xoreeyo ummadda Soomaaliyeed. waxyaabaha naga hortaagan in la xoreeyo, dib u habeynta iyo dib u hawlgelinta ciidanka qaybihiisa ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan. waxyaabaha naga hortaagan challenge-kana haysta ee ay tahay inay naga caawiyaan. marka iyagii ra'iisul wasaaruhu si fiican bay aan isku wada fahanay dhammaanteen. kadibna waxaan soo booqannay meelaha la doonayo in ciidanka lagu xereeyo sida saldhiggii booliska oo burbursan gebi ahaanba. aan rabno inay naga caawiyaan dib u dhisaan si boolisku u guto waajibaadkiisii ahaa amniga, inuu sugo amniga magaalada iyo gaar ahaan amniga gobolka Galmudug. waxaa kaloo ay soo booqdeen xarunta nabad sugidda oo wiilal dhalinyar oo ciidanka loo qaatay ay ku jiraan. iyada lafteeda waxaana ay tusaynay inay naga caawiyaan iyagana sidii tababar iyo dib u dhis loogu samayn lahaa. waxaa kaloo booqdeen qaybta 11aad oo ahayd xaruntii ciidankii marka laga reebo qaybta 16aad ugu awoodda badnaa ee Soomaaliya oo burbursan, isla markaana ciidanka Al-Sunna lagu diiwaangelinayo oo diiwaangelintii iyadoo socota ayay booqdeen. ciidankii taagan yahay la diiwaangelinayo. waad u jeedeen burburka ka muuqda xerada inay dib noogu dhisaan waa rabnaa. at the same time-na in ay noqoto meesha ciidanka lagu tababari doono ayay ahayd. marka arrimihii aan soo qaadnay iyo waxyaabihii aan ka codsanay oo dhanna si ful ah ayay nooga aqbaleen. waxaan mahad gaar u celinaynaa dowladda Qatar oo ku hawlan inta badan مساعدة المدة الصومالية قرب تاجر سجى دبعت هذا كل شيء وقبل هلا جرهنا وزارة عشان نجى واحد مرة ربنا له إن لا قرب تاجين وحين مساعدة أما تاجر وأنا قبل عنه هنقطة من عيران هنقطة من دغالة وأدوبتي هاي بابور أنا حبض كريم ودوري تدبعت كل دو إن أمر دو توجد وزارة عشان نجى marka hawlihii ay ku tabarucayeen ciidan madax xoogga dalka Soomaaliyeed ayay bay soo balaadhiyeen. waxaan rabnaana gobolkan Galmudug dowlad goboleedka Galmudug waxa uu suunta inay dhawaan ka dhici doonto dib u heshiisiin kadibna doorashadii. marka inta ka horeysa inaanu nabadgelyada sugno, ciidamada aan ahayn kuwa dowladda laga dhigo dowladda si muxuu ahaa nabadgelyo ah ay arrimaha la rajaynaya ay u dhacaan.